السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel walba aad joogtiin shanta qaarada dad ku sugan tahay xaalad walba aad ku sugan tahay haday ku tahay habeen wanaagsan haday ku tahay maalin wanaagsan haday duur ku tahay duur wanaagsan haday galab ku tahay galab wanaagsan haday subax ku tahay subax wanaagsan haday barqa ku tahay barqa wanaagsan hadaad ku sugan tahay shanta maamul goboleedna sidoo kale saaxiib waxaan ku leeyahay hadduu muuqaalkan ku soo gaaro waxaan ka rajaynayaa waxba kaama dhibayso lacagna kaama gadno inaad follow ii dhahdo leegtana ii taabato halkaad iga daawanaysa saaxiib waa Samadoon group page-ka haddaad ku cusubtahay saaxiib follow ii dheh leegtana sidoo kale sheertuna waa halkiina oo shanta gacmood ha la wada saaro haddii aad joogtid dhanka YouTube-kana saaxiib waxaan kaa codsan lahay subscribe lacag kaama gadno gambaleelkana furo leegtana sidoo kale muuqaalkana sii sheer garay haddaad muuqaalka ku soo gaaraad ku dhamaysato caafimaad waxaan kaa rajaynayaa saaxiib aadan kaaga madcelinaya haddii isku soo gaaro aad aragtidna saaxiibadaada u sheer garay adduunyo saa u joogtay wax walba waad arkaysaa laakiinse laisma dheheenin daaci mukhtaar ayaa sidaan u dhaqmaaya bismillaahi raxmaani raxiim qofka daaciga waxaa lagu ogaayay inuu diinta oo faafiyo maahana inuu dadka oo wax ka sheego mausan ahayn waxaa maqli jiray wax sheeg iyo wax lagaa sheegin waa ahalku dhiga Samadoon group intaad wax sheegi lahayd waxaa qurux badan hadal wanaagsan oo markaasi waaqici markaas taagan inaad ka hadasho laakiinse inaad dadka aad u gaftid daaci mukhtaaro adigoo nin weyn ah gari iyo gafuur leh aqal ilaahay ku siiyey laga wax ku maqshid ku siiyey bismillaahi raxmaani maxaad ka wadaa waay ragga fanaaniinta ama dhamaystirna markaad leedahay daaci mukhtaaro gaf soo kuguma ahan walaalkeygiyo ilaahay qofka bini'aadinka wuu dhamaystiriyo ilaahay qofka bini'aadinka wuu karaamiyey adiga bini'aadan ah inaad dadkaad u gaftid daaci mukhtaaro waa laga fiicnaa laakiinse kaari weysay way ku haysataa daaci mukhtaar iyo alfanaan dayax maxaa kala haysto maxaana ka dhexeeya muuqaalkan aynu kugu soo gudbinayaa saaxiibayaal usii sheergaray asxaabtada la sii wadaag kuwa kalena waxaan leenahay saaxiibayaal ha iga sii tegina muuqaalkan sii dhamayso alla ninkii daaci mukhtaar ah afka labadiisa ayuu yeeray wuxuu yiri ragga fanaaniinta ah ma dhamaystirno oo markaasi ayaka dhan waxa waaye shikili ayaka dhan waxa waaye labuuf oo dhahay laakiin jab baa ku dhacay isla markiiba waa loo soo jawaabay alfanaan dayax danuurshe wuxuu yiri mataqaana alla ilaahay dayaxow walaalow maxaad ka baday waaba dhahdee laakiinse uma uusan qalmin inaad saas dhahdo sababtoo ah waa ninka waa daaci inaad ka xishootid ayaa qurux badneed dayaxo laakiinse dayaxo baashi caradii baa kaasi dareex tagtayo ninkii waxba uma aanan reebin waa ninkii waa daaci u ahaayo war dayaxo maxaa saas u yeeshiyo shaatiga maxaad ugu siibtay ugu harguftay sababtoo ah qofka bini'aadinka waa loo dulqaataa hadalkiisana waa la fiiriyaayo isla markii laguma degdego degdegsiima door ma dhasho hubsiima hal baa la siistaa warka yaa idinku daalinayna daaci mukhtaar waxaa la yidhi mataqaanaa haddaan anuga dhamaystirnayn saaxiib anugaa ku habeynayne isoo toosi ma u qalmi inuu saas la dhaho dayaxna inuu saas dhaho ma u qalmi alla ilahay waa maya daaci mukhtaar oo adaa dadka daba dhigatee alla ilahay u dulqaado sababtoo waxaa la yidhi nawaraad firaysa naxdin ma leh qorigaad ku istaagda qacdiisana ha ka nixin allah inbaandi daaci mukhtaar adaa soo joog lagaa waayo soo jiif lagaa heli doona daaci mukhtaar ummadan nafta marba qof inaad ku dhegtid waxba ku qurux badan maaha sababtoo ah nin bulshada dhexdooda magaca ku leh baa tahay inaad isku xishoodid ummadda aad iska nabadgelisid amay ku roon tahay haddii kale arrintan aniga ka weyn marka dambe lagu halagali doontaa daaci mukhtaar oo aan ku ceshano ragga aad uga faysidna dhaaf dumarka aad haysatidna iska daa nin waxaa tahay daaci ah waxaa daacinimadana waa ogtahayo waxaa lagaa rabaa inaad u khidmaysid diinta islaamka dadka aad u wacyigelisid aad u nasteexisid maana in adoo daaci ah inaad dadka aad cayso baraha bulshada saas mar adi hebel dhuusa is haysatin mar adi ruuxaas iska daa waxaas wax kuuma naqdo war waxaa la yidhi qofka sharaftiisa waxay ku jirtaa markuu sharaftiisa ilaalsado ayaa asina sharaftiisa dadka markuu sharaftooda u dhowrayo tiisana dhowrsamay war qofka kaa weyn xishmay adna si lagu xishmay culimada waaweyn ku dayso adiga si markaas lagu dayso laakiinse daaci mukhtaar hadlay wuxuu yiri markii la dhaho dadkoo caay alla ilahay daaci mukhtaaro waxaa maqli jiray
hadal wanaagsan ha kaa tago war wanaagsanna dadka gaarsii maali hadal xun nin dhana daaci aha war xataa waxaa lagaa rabaa adiga haddii lagu caayo inaad dulqaadatid oo dadka u nasteexis laakiinse adiga yaaba dadka caynaya bismillaahi raxmaani raxiim daaci mukhtaar oo ma ogid miya dadka haddaa caad caysid ceebahooda aa sheegtid xikmadaha dhehayso dadka ba carabay leeyihiin ma ogtahay horta adi haddii dadka ceebahooda aa sheegtid ma ogtahay horta maskaxdaada ma gelisid daaci mukhtaaro dadkan ayakan inay carab leeyihiin oo wax kaa sheegayaan hadda waa kaayo dayax baa kuu soo jawaabay wuxuu ku iri isoo habeeyo anigu baa ku hagaajinayn ma u qalantaa waay uma qalantid adigoo daaci laakiinse adigaa dadkii ku dhegdhegay xagxagtay laakiinse waxaan ku dhihi lahay kuugu baaqi lahay cagtaada hoostiisa ka soco cagtii joogso mar bay ceeb la kuntaa ceebtan ceeb ka weyn inaa la kulmi doontidaa u malayna daaci mukhtaar oo aan ku ceshano baraha bulshada magacaad ku leedahay sumcadaada ha dili ilmo kaa yiri sumcadaada kaa bistooleynaa sharaftaada ilmo yaryar ku waay waa laga fiican yahay daaci mukhtaar ana waxaan ku dhihi lahay waana horteed uumisaa ka horeysay aniga walaalkaagaan ahay walaalow daaci muhtaarow aan ku ceshano daaci muhtaarow aan ku ceshano daaci muhtaarow aan ku ceshano walaalka i daawanayo walaashay daawanayo ninkaas halala hadlo kor iyo hoos halala hadlo walaashay dumaashidayday ninkaan la hadal ummadaan ha ku mashquula iska dhaaf meesha waxa usoo galay hadduu diintaas oo faafinayo cid ku dhiga male laakiinse lowla dad aa ku mashquulshid daaci muhtaarow adna waa lagugu mashquula laakiinse haddaad lowla dad ku mashquulino diintaas aad xoogga saarto cid kuu mashquulaysa adigoo diinta u khidmeynaya laga yaabaa dad badan inay wax kaa sheegaan laakiin dadkaas dhigtina u dhigtid ma ahano hortaada u socotid adduunya aakhirada aa shaqaysatid laakiinse hebloaan ku dhiga heblaayaa ku dhiga saa ma kuu qurux badna daaci mukhtaar hadal intaasaan kugu soo gagabayna dayaxna adne dadka kaa waaweyn ishooda iyo dadka kaa waaweyn iyo culummada dadka ah dayaxow ha ku degdegin dayax walaalkeygii adne ha ku degdegin aan ku dhihi lahay meeshii wax kaaga imaanaya ilkaaga imaanaysa ama oofkaaga imaanaysana iska ilaali afkaagan iyo dhegahaadan ha ismaqlaan dayaxow ummadda iska nabadgeli adne dayaxow nabadgeli saaxiibayaal haddaad ku cusubtaa beedka samadoon group follow ii dheh leegtana ii saar youtube haddaad joogtana subscribe-ka waa ii muhiim leegtana sidoo kale sheertana sidoo kale bifadlikum saaxiib follow lacag kaama gadna farahaada inaa iigu saarto waxba kaama dhibayso saaxiib muuqaalkani kiis xiga intaa ku kulmi doono waa bahal samadoon group waa idin dhahayo fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah wadkuru llaha kasiira lacalakum tuflixuun